koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaada horta geedki ma joognaa kalamaan la dhihi jira waaba yihiinba xaad isu keentay weligiinba wax saxa isuma keenine beriga xaa isga fahood noo haysiin war haddii la iskafa cabdillow gawsaha la iska jabinayahay nin dacwo ahay soo wacay aniga gaalkacyuu maqaayad ku leeyahay maqaayad shaaha laga cabo oo lagu fadhi kudirruu lahaa maqaayaddaydii kalamaana loo bixiyuu yidhi magaceediina waa baaba magdhowaa idinka rabaa xaan loo siina xaad u sii weydeen war magaayidda magaaje oo rasme eh hata helilankuu suge eh reer mudug oo iska maanko eh weligaanooba ma aragna war heedha nin gaalkaca ka tegey ayaa yurub la geeyey markaasaa la waraysto waxaa layidhi xaggee ka timid markaasuu wuxuu ku jawaabay muqdisho aan ka imaaday xaggee ku dhalataa la yidhi markaasuu wuxuu sii raacay muqdishoaan ku dhasho waxna ku bartay weliba markaasaa waxaa la weyddiiyey kuulee calibanjar ma taqaanaa markaasoo kor inta fiiriyo cabbaar aamusnaaday oo yidhi nio kuulee calibanjar ma xasuusto iyadoo yara ay ugu dambaysaye laakiin ilmo calibanjar ilma adeer labaad baanu nahay ma ka yeesheenhe warnimayahu shirkii bruselis dadka qalab ayaa dhagaha uga jiray oo u tarjumaya luqadda lagu hadlaya axmed madoobe ayaa istaagay oo af soomaali ku khudbeeyey shariif xasan oo qalabka turjumaadda dhagaha ugu jireen ayaa kaalihiisu waxuu yidhi madaxweyne iska bixi af soomaali ayaa lagu hadlayaa markaas ayuu shariif xasan wuxuu yidhi maay in laigu turjumo ayaan fadee aw shariif madajay kor inoo afka mayka international ee shira dhelah kaga hadlawa sheegi war qalabkaas af maamay lagu borogaramin wariya hoosaka ka bool garaamsanya war anuu markaan wararkii dhageystay shirkii bruselis soomaalidu waxaan ceeb ahayn lama tegin ayaga unbaa isku dacweeyey dadkii meesha jooga sheeyahaas inay maxkamad yihiin ma laga dhagansadahe dacwadoori war shirkii bruselis ajnabiga ka qaybgelayey mid walba buugnood ayuu watay wixii la sheegayuuna qoranayey laakiin soomaalidu gacmaha ayaa isu saarnaa mid wax qorayana kuma jirin war may goraayan anteed qoraalka boojaysanta hibil ama hoos wallinka dhiiba baasleynhan dhoojoba teegana war xaafaa hore u yidhi ayadoon lacag la helin wax hagaagaya ma laha soomaalidu waxba qori mayn baad leedihiin maxay qoraan haddaan lacag la siin waxay qoraan la arkaa ma waalanta ma lacagta halkaas taalaa horumarina waa wixii leesla gartee war anigu waxaan la yaabanahay guddoomiyihii buula burde wuxuu yidhi tallaabaan ka qaadaynaa odayaasha al-shabaab la kulmay waayahan dhanna waxaan maqlaayay dadka shabaab u dacwoonaya odayaasha la kulmaayo iyo ganacsatada tallaabaa laga qaadaya tilaab iska dhaafe taakan muskeerna lagama qaado warnimada mas-uulkii shaqadiisa gabaahay maatadu ku meeraystaa shabaabkii oo u muuqda ninaan aadaynin ayaa wuxuu leeyahay dadkii maatada uma tegi karaan ma dadkaa amarka diidi kara madaxaa laga goynayaa war miskiina miska la fuulalaniyo guddoomiyaha buula burto haddaan aad sheegaysiin ninuu run sheegaayo buula burto inya ka soo safroo dhulka soo mara car jawhar ha yimaada car wir war baradina xataa ma tegi karo jawhar xaa ka rabtaa xow dadka ka rabaa mugga war xildhibaanadii baarlamaanka maalintii saan u dhashay waa tii miishanku loo qeybi kadibna waxaa la yidhi baarlamaanka waa xiran yahayba marka waxaan ii sheegaa xildhibaan ummadda u hadla maba jiraba war soomaali geedini ley runsheeg ma fadaayan xildhibaana hadalay may eray shantunkun isinsanka oo giliyaasan masaakiinta daadka gaadoo sodogada kahaase unamanii kahaaso haanas hal siyo eri ma laga yeelahe runta ay fadehe waryaadhehen waa iska dhowdhowladiine faysal cali waraabe anigii cali khaliif galayn waxaannu tagnay buuhi bruselis somalilanna labadaydaa matelaynay buuhi waxaanu iska yidhi lacagtii ay qaybta u lahayd somalilan annagaa faraqa ugu sidna war faysal cali waraabe wuxuu yidhi madaxweynaha waa eedaynay wuuna noo dhaartay waana ka aaminay buu yidhi alla ilaah warka faysalaan maqlaayo nin muraadkayiisi gaaray waa u ekay waanaba tahaan u malayha horta nin walowba allaha sug marka wafdi baarlamaaniya ayaa maanta looga yimid dalka yuganda ee yuwera museveni
marka waxa aan filayaa oo ku rajo weynahay kol haddii qolada aan jaarka nahay ictiraaf weyday inay qolada Uganda ictiraafto war ciidan Ugandaysa Hargeysa la geenayaa Amisom kamida war ciidan Ugandaysa loo bafaasan Soomaaliland wal siinka dharjiye war gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kaas waa la taliyaha madaxweynaha Banaadir yariisoo baa gudoomiye duqba ka ah duf ku bixi waay warkaan naga dhaxgal Cabdille bunku gube talu soo jeediyay maanta la taliyaha madaxweynuhu wuxuu yiri magac aan madaxweyne ahayn oo mas'uuliyiinta maamul goboleedyada ku habboon Soomaaliyeey maskaxdiina ka tuujiya toddoba madaxweyne oo Soomaaliyeey shir inay saftaan waa ceeb waana wax aan laga soo kaban karin Baraasalisna waa ku ceebow maalintii dhaweyd yaa tartan raadiyo kulmiyaha waa dhageystaa saa wax ka yihiin Geedland waa tii loo baxshay aw Shariif Madil Karaab anta kala gudoomiye goboleedka Geedland la eray magaajo ku darin madaxweyne xeef Geedland waarana ka reeb ari boowe Cabdi Wali Gaas ra'iisul wasaare buu ahaan jiray madaxweyne wax ka yarna lamaba oran karo Axmed Madow Amiir ahaan jiray waxaan madaxweyne ahayn ma wala dhihi karaba war adeero madaxweynaha Soomaaliland shacabkiisa soo doorto isagu waa sharci wixiis haddii gudoomiye gobol madaxweyne la dhahayo kan Muqdisho mudan oo 3 milyan oo maamula wareedahay Abi Axmed madakadii casmaraa ku filaatay markuu afaweerka leeshiye nuguma soo noqon war dawladda Qatar waxay tiri Soomaaliya fargelinta laga daayo yaa ma waalantiin imaaraadku waxay tiri Soomaaliya farahan kula jiray waa kala baxay mug hore gabaar deeb karafadii muraad yay deeri dantii oo deereen waraada imaaraadku carruurtayda aanahooda bixiyaan mana ogolin inay naga tagaan aana alla kuma siiyo anta fuud adigu akuufa fadhiyaanahe warka ku daysan dad waalan waa naga taga qayladii kala taga ugu daysan naga taga waxna war xishooda war adag radileeyo war yaada nyaanyo ugaan saasi yar korte iya wuu ciiraya ya iga tag halayga ka aqaade war aroos waa yihiin